shir ballaaran oo ay yeesheen wadamada ku boobay ururka IGAD oo lagaga hadlayay dhinaca horumarinta haweenka oo ay Somaliland uga soo qayb galeen laba xubnood oo sarsare ayaa ka dhacay hotelka Hilton ee magaalada Nairobi. Kulankan oo wadamada ka soo qayb galay ee ka tirsan ururka IGAD ay ka mid ahaayeen Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, South Sudan, Somaliland iyo Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia oo ay ka maqneed wadamada ku boobay ururka IGAD elatariya oo kaliya oo laba maalmood ka soconayay magaalada Nairobi ayaa waxa Somaliland uga soo qayb galay la taliyaha madaxweynaha Somaliland ee dhinaca arrimaha haweenka Amal Ahmed Miisaan iyo agaasimaha xarunta agoomaha Hargeysa Caasha Maxamed Qaalib. iyadoo ugu horeyntii Caasha Maxamed Qaalib ay warbixin kooban ku siisay TV-ga qaranka Somaliland oo ku saabsanayd ajantaha shirka iyo waxyaabihii lagaga hadlay ayaa waxa u dhacaysay sida tan. shirkan wuxuu ku saabsanaa waxa weeyaan waxaan la yiraahdo genderka dumarka u badan waxa la sameeyay koolasiyada genderka oo inaku hadaynu Somaliland nahay waynu haysanaa oo mid Somaliland u gaar ah buu jira waxaana kamid ah buugga halka aan ku hayo oo ka sheekaynaya gender policy Somaliland laakiin se kan maanta halkan aanu nimid waa ku regionka IGAD ay ku midoobeen oo la isu geynayo qolo walba wixii keeda ku jiray wixii looga baahnaa laga qaadanayo deetana la qoraayo mid cusub oo marka regionka inta wadana uu ka kooban yahay isugu jira halkan waxaad arkaysaan draft ay soo draft gareeyeen qolooyinka ku ama memberka IGAD marka draftka ayaa la soo saaray mar hore dabeetana wixii waxa la in la approve gareeyo iyo in ama wax lagu daro ama wax laga saaro qof walba sidii uu isagu wadan walba uu doonayo ayaaba halkan maanta labadii cisho ka dhacaysay oo ahayd shalay iyo maanta. waxa sidoo kale halkaasi ka hadashay Amal Ahmed Miisaan oo sheegtay waxyaabaha ay Somaliland ahaan ku soo bandhigeen shirkaasi ee horumarinta dhinaca haweenka ahayd. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa ilaahay mahadiya inaan maanta la kulano saxaafadii Somaliland anagoo shaqo hawleed haweenka u joognaa dalka Kenya magaalada Nairobi waxaan leeyahay inamada saxaafadda Home Cable TV iyo TV-ga qaranka waan soo dhaweynayaa waan idin salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay sida aad nooga warhaysaan kolba tallaabada aan qaadayno dadka Somaliland iyo meesha ay marayaan iyo sida aad noo soo booqateen anagoo run ahaantii aanu ka filayn in ay saxaafad Somaliland ka socoto ay noogu timaado Hilton in aad baad ugu mahadsantihiin waan ku faraxsanahay inta dabadeed waxaan joognaa muddo 4 cisho ah shirkaan u nimidayna waa shir sidii Caashaba u sheegtay IGAD oo markii hore ee la sameeyay aanay Somaliland iyo Soomaaliya aan laba wadan oo kala madax banaan aanay ahayn laakiin ay wada ahayn markii hore Soomaaliya imikana alxamdulillaah rabbil caalamiin IGAD ay garatay in ay Somaliland waxyaabihii horumarka ay IGAD qabanayso ay ka soo qayb geliso iyaguna ay noogu yimaadeen IGADna dalkana ay noogu yimaadeen imikana ay shirar dhowra naga soo qayb galiyeen kan oo maanta ah ka anaga na khuseeya oo ah genderka waxyaabaha loo qabanayo lamaanaha aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno wixii aan ka qabnay iyo wixii aan ku ogeyn iyo wixii aan uga baahnayna aad ayaan uga dhiibanay run ahaantii dadkii meesha fadhiyay iyo dawladii ka soo qayb galayba aad ay ugu farxeen marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay Somaliland noqoto xagga horumarka genderka aan wax alla wax lagu xidhaanay jirin ixtiraaf iyo kamid noqonsho IGAD midna aan lagu xidhin aad baan ugu faraxsanahay anaguna waxaan rajaynaynaa in waxyaabaha horumarka ay qabsanayaan gobolada isku tagay Afrika Horn Africa ay qabsanayaan inaan dhinacayaga aan wax ka qabsano oo haweenkooda ay horumar sameeyaan runtii aad buu wadanku ugu horumarsan yahay xagga wax qabadka haweenka iyo sida genderka ay u dhaqaajiyeen aad buu ugu horumarsan yahay xukuumaduna aad buu uga shaqeysaa run ahaantii lamaanaha isay u horumar lahayn haweenkana aad buu uga shaqeysaa tii aan xaqii ku haynay baan masha Allah xaqana la nimidnay IGAD oo doonaysa inay hore u mariso horumarka haweenka
gabagabadiina buuggani ayaa ahaa buuggii ay soo bandhigeen xubnihii ka socday Somaliland ee ka soo qayb galay shirkaasi una soo bandhigeen dowladaha ku boobay ururka IGAD ee shirkaasi ku kulmayay dhammaantoodna ay u qushuuceen Cabdullaahi Cabdi Cali TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Nairobi.